الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تقاليد هي كنت وعنا ونكسن كسر دوادا براشدا بلوغا كمبيوتركا دونيدا ما أنت هرمر داي waxay ku shaqeynaysaa كمبيوتر adigana waxa laga doonayaa in aadan ka harin tareenka nolosha oo aad barato كمبيوترka bilowgiisa ka bacdina aad hore socoto oo naftaada aad hormariso dawadaha qiimaha badanow dadka maanta bilyaneerada ah waa dad adigoo kala ah kaliya waxa ka xigta waqtiga inaad maareyso yaa iska dayso maalayaaniga waa haddii aad tahay dad waqtigooda ku dhumiya wax aan faa'iido lahayn al-umru qaliil umri aad u yar intaasi waa iga waano iyo wax u sheeg dawadaha qiimaha badanow waxaan jeclahay horumarkaaga iyo inaad noqoto qof nolosha ku qoray baaldahaba waxaan dhibcaanayaa inaad nolosha ka harto waqtiga aan ku dhimiso waxaan qiimo ku lahayn qabyaalad iyo wax la halmaado social media TikTok iyo baraha bulshada waxa sameeyay adigoo kala ah qof adigoo kala ba sameeyay adiguna waxa doonaysaa inaad waqti ku dhimiso barnaamijku meestana ama musku day ama ka fikirta inaad noqoto qof waxa la abuuraa soo saar application dadku dhan ay isticmaalaan qof noloshiisa hormariyay gaaray isku filaansho mise waxa doonaysaa nolosha isku dhaxyaaca ah switch photos ya waxaana doonaysaa mise waxa doonaysaa nolol qurux badan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qof kasta meesha soo isdhigay ayaa Ilaahay dhigaa ma garanta halka hadana oo soo daawadaha qiimaha badan oo waxaan ku wada jirnay barashada aas-aaska kombiyuutarka haddaba daawadaha qiimaha badan oo cashirkeena hore waxaan uga soo hadalnay marka uu doonayo kombiyuutarka inuu xog hagaajiyo inuu maro 5 talaabo xog hagaajiyo maxaa ka wadaa كمبيوتر waxa loo sameeyay in wax lagu hagaajiyo aan qalab wax lagu qabsado kale tusaale kale warshada waxa loo sameeyay in wax lagu shiito sax hadaba warshadu marka oo horeysa waxa lagu shubaa ka bacdana way shiidaa ka bacdeedna markii shiido ka bacdana raashinka shiido waa laga shubtaa كمبيوترkuna waa sidaas oo kale كمبيوترka marka hore waxa la geliyaa waxa la geliyay ayuu hagaajiyaa habeeya markuu lagu hagaasadana waa laga la baxaa marka shanta talaabto oo horeysay waxay ahayd input devices oo loola jeedo marka kombiyuutarka wax la gelinayo ama qalabka kombiyuutarka wax kaliya 18 qodob ayaan ku soo sheegnay marka la doonayo kombiyuutarka in xog la geliyo xog iyo macluumaadna waan soo kala bar inkastoo kelmadan macluumaad ay tahay Carabi haddana aan nibcahay inta badan in marka qof wax u sharaxayo aan ugu sharaxo luqad ka duwan luqadiisa hooyo waayo macluumaad ama information hada laysa biluqatan bas luqadana ma luqadana waa waxaan jeclahay inkastoo luqadda aan aad u aqoonin waa caalami lagu oranayaa Soomaaliga hadda taqaano commentiga igu reeb waxay ii tahay faa'iido haddaba dawadaha qiimaha badanow marka kombiyuutarka uu doonayo xog inuu hagaajiyo 5 waddo maraa kombiyuutarka xogta waa la geliyaa xogta markii la geliyo wuu kaydiyaa ka bacdina wuu hagaajiyaa haddaba maanta muuqaalkeenan waxaan ku baran doonaa dawadaha qiimaha badanow waxa loo yaqaano CPU waa midka hadda hortaada ka muuqda CPU waxa laga soo gaabshay Central Processor Unit waan qabtaa u maleynaya haddaba muxuu yahay Central Processor ama CPU ama processor saddexdaas magac buu leeyahay CPU processor ama Central Processor Unit af Soomaaliya kugu sheeg waxa weeye habayn xogtu hagaajiya wax kala ma qabto xogti waa soo gelisay yaa ku hagaajinaya yaa qaabilsan in xogta la hagaajiyo waxa qaabilsan CPU waa mid ka doortada ka muuqda dawadaha qiimaha badan cashirkeena inta kaliya ayuu soo yahay waa fahamtay kombiyuutarka xogta waa la soo galiyay ka bacdana xogti waa la hagaajiyay yaa qaabilsan shaqada iskale in la hagaajiyo waxa iskale CPU ka hortada ka muuqda saddex iyo qaybsamaa muuqaalka ayaan kaga boqon doonaa isagoo faahfaahsan oo dhameystiran haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqata fadlan muuqaalka subscribe-ta dhac ku sii hadafkeenu waa 1 milyan hansar ayaan leeyahay meel sar ayaan higsanayaa ummadaydi adinkuna waa garanaysaa adinkuba haddaba daawadaha qiimaha badanow muuqaalkeen ayaan hore ugu soconaynaa muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxa la yaqaano CPU waxa laga soo gaabshaystaan hore ugu soo xusayba Central Processor Unit shaqadiisuna waa hagaajinta haddaba CPU waa maxay muxuu qabtaa CPU waa maskaxda kombiyuutarka
adigu waxaa leedahay miskax aniguna waxaan leeyahay miskax computerkuna wuxuu leeyahay miskax haddii aan ku yiraahdo laba ku dhufo waxaad oranaysaa waa 4 waxa ka shaqeeyay waa miskaxdaada haddaba computer miskaxdiisu waa maxay waa CPU gaas bahalka yarka waa computerka miskaxdiisii wax kastoo miskax qabatana waa uu qabtaa haddaba markuu CPU waa miskaxda computerka CPU waxa uu fuliyaa dhammaan habaynta xogaha wax kastoo computerka laga habeeyo oo laga hagaajiyo shaqo walba la qabanaya isaga qabanaya waxaan filayaa waad faham xogta ha u qaadanin kaliya xog la soo galay xogta waxay noqon kartaa wax fara badan markaad muuqaal tirtiraysid sawir hagaajinaysid computerka marka haddaan computerka wax soo gelisay flash ba soo qaatay muuqaal ba soo gelisay wax hartan hagaajisid shaqadan hagaajinta ah editing ka sameynaysid photographic ka sameynaysid waxa shaqadan yaa qabanaya hagaajin oo fartan ma nuxunaysa kaliya laakiin shaqadan waxa qabanaya waa CPU waxaan filayaa waad fahantay flashtuna waa input device waa qalabka computerka wax laga soo gelinayay kabacdi wuu hagaajinayaa kabacdina xogta waa kala baxaysaa marka CPU-ga waa fuliyaha dhammaan habaynta xogta shaqadan saas kale lama 3 hadaba CPU-gu waxa uu kaydiyaa xogaha iyo programmada waxaan filayaa waad fahantay xogta wuu kaydiyaa kabacdina programmadana wuu kaydiyaa lama 4 waxa uu maamulaa dhammaan shaqada qaybaha kale ee computerka aan kugu soo celiyo koo waxaan ku iri waa miskaxda computerka labo waxa uu fuliyaa dhammaan habaynta xogaha lama 3 waxa uu kaydiyaa xogaha iyo programmada macnaha kaydiyaa xogta marka oo horeysa intaan la bedelinba saa kaydinaya programmada program waxa la yaqaan waxyaabahan wax lagu hagaajiyo programka ama application-ka kale isaga kaydiya 3 waxaan ka wada 4 waxa uu maamulaa dhammaan shaqada qaybaha kale duwan ee computerka haddaba qaybaha badan wax filayaa fahamtay 4taas ayaan ku soo koobi karaa kow waa miskaxda computerka waxa uu fuliyaa dhammaan habaynta isaga qaabilsan isaga fuliyaa hawsha habaynta waxaan ka wada macnaha xogtii soo gelisay xogta in la hagaajiyo isaga qaabilsan 3 waxa uu kaydiyaa xogaha macluumaadka iyo programmada xogtii waa la hagaajiyay xogtii waa la soo geliyay macluumaadka loo bedelay isaga qaabilsan in xogta uu kaydiyo kabacdina uu bedelo hayla marka ugu dambeeyana waxa uu maamula dhammaan shaqada qaybaha kale ee computerka shaqo walba computerka lagu qabto isaga maamula wuxuu ka yahay mas'uul guudka ah haddaba daawadaha qiimaha badanow CPU waa soo baranaa CPU ama Central Processor Unit waa miskaxda computerka wax walbana ayadaa qabataa wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood ayuu u qaybsamaa CPU kow memory ama storage unit memory ama storage waa isku mid ah waa kaydiye xogta marka la soo geliyo waxa loo baahan yahay in la kaydiyo hadda taa kulaha waxa uu kaydiyaa xogta iyo programmada marka qayb kamid ah ayaa hawsha qabanaysa qayb kamidana waa ilaalisa qayb kamidana xogtii ayay habaysaa marka CPU-gu 3 ayuu qaybsamaa mid koobaad waa memory ama storage memory ama storage waa isku mid ah waa kaydin haddaba memory-gan muxuu yahay memory-gan xogta la soo geliyay ayuu kaydinayaa shaqadiisu inta kaliya way wax kala ma qabto haddaba memory-gani waxa uu shaqaynayaa inta uu computerku daaran yahay waxaan filayaa waa fahanteen memory-gani waa kaydiye laakiin kaydka intee buu hayn karaa inta computerku daaran yahay kaliya ayuu kaydinayaa kaydka laba loo kala qaadaa kaydka meel gaara iyo kayd rasmi ah kaydka meel gaarka waa kaydka uu marka computerku daaran yahay uu kaydinaya memory marka halkan ku soo koobo CPU wuxuu qaysaa 3 mid koobaad waa memory aan filayaa ama storage shaqadoodana waa inay xogta kaydiyaan daawadaha qiimaha badanow waxa filayaa waad fahanteen waxa uu shaqeynayaa inta computerku uu daaran yahay sidoo kale waxa loo yaqaanaa dab la bix ama ifoo la baxay dabka inta koronto daaran tahay ayuu la baxayaa haddaba wuxuu leeyahay magacyo memory-gan ama storage-kan wuxuu leeyahay magacyo fara badan waxa kamid ah internal storage main memory primary storage random access memory ama loo soo gaashay RAM volatile
intaasoo magac bayuu leeyahay. haddii markale aan kugu soo celiyo, memorygu shaqadiisu waa inuu xogta kaydiyaa. waxaa loo yaqaanaa magacyo kala duwan sida internal storage unit, main memory, primary storage, random access memory ama RAM, volatile. haddaba daawadaha qiimaha badanow, waxaan filayaa magaciisa waad barataa, shaqadiisa ayaa hadda gurgeli doonaa. waa maxay shaqada memorygu? waxa uu kaydiyaa xogta, natiijooyinka iyo programmadaba. waa in hadda kusoo lahaa kusoo oranayay CPU-gu waxa uu kaydiyaa xogta, programmada iyo macluumaadka. shaqada ayaa u qaabilsan, memory ayaa u qaabilsan. saddex u qaybsamaa. koowaad waa memory. memory shaqadiisa waa maxay? wuxuu kaydiyaa xogta, natiijooyinka iyo programmada. lambar 2, wuxuu macluumaadka siiyaa qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka. waxaan filayaa waad fahantay. shaqadiisa labaad waa maxay? wuxuu macluumaad siiyaa, maadaama asoo kaydiyihi uu yahay kombiyuutarka qaybihiisa kala duwan ayaa waxa ka qaata macluumaadka, ama waa xiriiriyihii kombiyuutarka. qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka ayuu macluumaad siiyaa. wuxuu macluumaadka siiyaa qaybaha kala duwan ee kombiyuutarka. haddaba memoryga waan soo fahnay, waa kaydiye ku meel gaar ah. waxaanu kaydiyaa xogta, programmada iyo macluumaadka, ayraha natiijooyinka oo kale. haddaba waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood. waa memoryga mid loo magacaabo primary memory iyo secondary memory. waxaan filayaa daawadaha qiimaha badanoo waad fahantay. memoryga labada ayuu qaybsamaa. haddaba primary memory waa midka asalka ah ama xogta inta badan kaydiya. ka laftigiisana 2 ayuu soo qaybsami doonaa. waxaa loo kala qaadi doonaa waa meesha ka imaan doonaan RAM iyo ROM. waxaan kaga hadli doonaa muuqaal dhammaystiran. marka intaas meel ugu sii qor. CPU 3 buu qaybsamaa. 1 waa memory ama storage. shaqadiisu waa inuu xogta kaydiyo. 2 inuu qaybaha kala duwan kombiyuutarka macluumaadka siiyo. 2 ayaa loo qaybshaa memoryga, primary memory iyo secondary memory. primary memory wuxuu sii qaybsamayaa ama waxa ka sii fircamaya aan iraahdee RAM iyo ROM. RAM waa xusuusta dhow ama kombiyuutarka uu daaran yahay ayuu wax kaydinayaa. waa anaga hadda ku soo marinay memory iyo RAM waa isku mid. sababtoo ah RAM waa magacyada kamid, wuxuu kamid yahay, waa magac kamid ah magacyada loo yaqaano memoryga. hadda wanaga soo arkaynay. marka RAM kuna waa maxay? Random access memory. waa kaydiye, wuxuu kaydiyaa xogta inta uu daaran yahay kombiyuutarkaas. ROM-na waxa loo soo gaabshay read only memory. isaga kaliya waxa laga soo akhristaaye wax kale laguma furo. intaas waxaan filayaa daawadaha qiimaha badan waad fahantay. haddaba daawadaha qiimaha badanow, labadan primary memory iyo secondary memory shaqadooda waa maxay? 1 waxa ay kaydiyaan dhammaan xogta iyo tilmaamaha looga baahan yahay in la habeeyo. waxaan filayaa waad fahantay. labadan shaqadooda waa maxay? waxa ay kaydiyaan xogta iyo tilmaamaha la doonayo in la habeeyo. intaa la habeyn ka hor way sii kaydinayaan. markii la hagaajinayo ama la process garaynayana ayagaa haya. marka shaqadooda waa intaas. primary memory iyo secondary memory waa qaybihii u qaybsanaya memoryga. shaqadooduna waa inay kaydiyaan xogta marka la hagaajinayo iyo ka hor intaan la hagaajinba. sidoo kale intaa marka ay hagaajiyaan ka bacdina de waxay u sii dirayaan qalabka lagu soo saaraxayay. marka daawadaha qiimaha badan waa intaas. qodobkeena labaad waa control unit. control unit shaqadiisu waa inuu ilaaliyo xogta, waa ilaaliye kaliya, wax kale ma qabto. haddii aan suuqaas soo helo daawadaha qiimaha badanow, CPU 3 buu qaybsamaa. 1 memory ama storage. shaqadeeduna waa inay xogta kaydiyaan. lambarka labaad waa control unit. shaqadeeduna waa inay ilaaliyaan. kii hore waa kaydin, kana waa ilaalin. haddaba cutubkaani wuxuu gacanta ku hayaa howlaha kombiyuutarka ka socda dhammaantood. cutubkan ayaa gacanta ku haya ilaalinayaan. cutubka ku leeyahay macnaha waa control unit. shaqadiisu waa clear inuu gacanta ku hayo oo ilaaliyo dhammaan howlaha ka socda kombiyuutarka. midna ogsoonow, control unit xogna laguma hagaajiyo, hawl ma fuliyo, kaliya waa ilaaliye. xog ma fuliyo, hawl ma qabto, wax kale ma qabto. kaliya waa inuu xogtaas ilaaliyo inay dhunto ama inay wax kale ku soo darsamaan. haddaba howlaha cutubkaani waa 1 wuxuu mas'uul ka yahay xakamaynta wareejinta xogta iyo tilmaamaha. markii xog la wareejinayo oo meelka loo wareejinayo ama markii barnaamij program la wareejinayo oo meelka loo wareejinayo yaa xakameynaya ilaalinaya waa control. ilaa kombiyuutarku ma ogtahay
waxaan waa wax lagu talagalay in saxba ka dhuminin markii xog flash ku qaadanayso oo flash kala ku wareejinayso ama program meel u rarayso ama computer ku shumayso ama program qaadanayso kala wareejinta xogta markii la kala wareejinayo ama programada yaa ilaalinaya control unit shaqadeeda kaliya waa marka xogta la kala wareejinayo programka la kala wareejinayo inuu ilaaliyo waxaan filayaa waad fahamtay lambarka labaad oo ah shaqada control unitka waxa uu maamulaa isku dubaridka dhammaan qaybaha kombiyuutarka kombiyuutarka isku dubarido oo hawlihiisa ay noqdaan hawlo toosan shaqada ayaa iska leh control unit saddex waxa uu xogta ka helaa memory-ga waxaan soo barnay memory-ga inuu xogta siiyo ama macluumaadka uu siiyo qaybaha kombiyuutarka haddaba qaybtaani waxay ka qaadanaysaa xogta waxay ka qaadanaysaa memory-ga kabacdina programka ayay turjumaysaa kabacdina sidaas ayay programka ku howlgelayaa waxaan filayaa waad fahantay waa shaqada controlka qodobka afraad oo ah shaqada uu qabto control unit wax ma baaro waxna ma kaydiyo shaqada soo malahan kaliya waa ilaalin marka xogtan la kala wareejinayo xogtan la isku waxaynayo waxa waa shaqadiisa iyo computer isku dibarido computer maamul bukaya marka hadaan ku soo koobo waa ilaaliye wuxuu ilaalinayaa hawlaha socodka computerka dhammaan isaga ilaalinaya kaliya waa intaas daawadaha qiimaha badan waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanadkii qaybta saddexaad ugu dambaysa qaybaha CPU-ga ama Central Processor Unit-ka waa ALU eeda waxa laga soo gaabshay arithmetic laankana logic iyadana unit haddaba qaybtaani maxay u qabataa CPU-ga ama maxay u qaabilsan tahayba haddaba arithmetic waa afartii xisaabalood logicna waa qaybta caqliga afartii xisaabalood waa ku dar ka jar ku dhufo iyo u qaybi marka computerka adoon inaad wax ku xisaabtatid qaybtan ayaa qaabilsan waxa filayaa waad fahamtay shan ku dhufo boqol ku dhufo milyan ku dhufo hawshaas waxa qaabilsan waa qaybtan loo yaqaano arithmetic qaybtan loo yaqaano logic shaqadeedu waxa weeye in ay samayso isbarbardhig waxa laga wadaa labadan shay kii weyn kii yar labadan shay tusaale ahaan kale waxa doonaysaa inaad shay meel ku koobiso kale uu ka diidaya waayo wuxuu ku leeyahay shaygan markii hore ayuu meesha ku jiray xulashada kamid ah in shaygan xulato kale oo labada shay si magacaan isugu xigaan inay u xulato isugu xigaan si u xulato iyad ahaan si inay u xulato cabir ahaan inay u xulato labadan shay si isu leeyihiin kale waxa kale kamid ah in ay xogtu isku darka xogto kale marka hadaan ku soo fuday qisna shaqada waxa weeye qaybna xisaabta qaabsantahay waa arithmetic qaybna waa caqliga computerka wuxuu leeyahay caqli caadi ah sababtoo ah markii computerka doonaysa file meel yaala ina qaado haddana ay gasa faylkaas meel kale haddii faylkan uu meesha kale yaalo uu ka diidaya wuxuu ku leeyahay faylkan meesha ayuu yaalaa xogtana uu isku bardhigaya tusaale kale meesha waxa ku taal xog fara badan oo kale xogtan waxa doonaysaa inaad isku xijisid qaabka isu leeyihiin inaad isku xijisid qaabka ay cabir ahaan is leeyihiin inaad isku xijiso qaabka ay xogtaani ay dhiidahaan isku leedahay shaqadaas waxa qaabilaya waa qaybta loo yaqaan logic caqliga daawadaha qiimaha badan oo CPU-gu saddex qaybood u qaybsamaa shaqadiisuna waa habeynta xogta haddaba xogta markuu habeynayo isaguna saddex qaybood u kala qaybsamaa kow xogta in la kaydiyo laba xogta in la ilaaliyo iyo saddex xogta in la hagaajiyo haddaba daawadaha qiimaha badan waxa ay fahantay qaybta waa qaybta ugu muhiimsan ee qaybaha kombiyuutarka waayo waa qaybta xogta hagaajisa qaybihiisuna waa kuwaas intuu qaybsamo waa soo koobay muuqaalka aniga ugu talagalay inaad waqti isku dheeraan si hawlaha kalena aad u qabsato haddii muuqaalkan wax ka faa'iiday labada walaalahan ugu yar noqo qof wax faa'iiday dadkuna ka faa'iidaan aadin kaga mahadcelinayaa ku xirnaantaada hirgelintaada iyo mas'uuliyadda ka saarta channelka inaad subscribe siisaa oo aad sii faafiso adaalu cala alkhayri ka faa'ilihi haddaba daawadaha qiimaha badan aadin kaga mahadcelin doonaa mar walba socoshadaada ka guri free course wixii fikrad ah ama tala ah ama tusaaleyn ah igula wadaag qaybta hoose ee commentiga markasta haddaad ka mid dadka ii soo qoro commentiga wanaagsan waxaa tahay walaal aan jecelahay waxaana jira dad mar walba dhiirigelinteyda iyo sheegaygaba u taagan inuu qalbiga ayaan ka salaamaya walaalaha qaaliga iyo qof walba oo af Soomaaliya ku hadla Soomaalidu waa walaalo weeye isjecel
هذه السلام يا أصحابي، هذه السلام.